بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونكسن داوديال كسر دوادا برنامج كان يدبك هذا برنامج كان في النمو وحان كجهل لدونا ورر صوب حية وشيء إن دجال مدة ساعات كله سعودي لقول له يي قار بدن وكم ذا مدحدي كوحدة تي بي ال اف يدو بورليدا gobolka Tigreega ku dhuumaalaysanaysa halka qaar kalena gacanta lagu dhigay ragga la laayay iyo kuwa la qabtayba waxa ku jira saraakiil sarsare oo caan ka ahaa wadanka Ethiopia 27 sano ee ugu dambeeyay ee xukunka ay haysay kooxdii EPRDF ee ay TPLF ugu tunka weyneyd khasaare xooggan ayaa lagu soo warramayaa in la gaarsiiyay kooxda TPLF oo iyadu dabcan waayadii ugu dambeysayba dagaallo xooggan oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa ku haysay ciidamada wadanka Eritrea iyo waliba kuwa Ethiopia ee ku sugan gobolka Tigreega arrintaasi ayaynu ka hadli doonaa waxa ila jooga saaxiibkay Jaamac Gallad oo daaha gadaashiisa isaguna ku sugan Jaamac waan ku soo dhaweynayaa waa maasantahay saaxiib waayahay bal aan warkan ku soconno maxaa u dambeeyay wararkan soo baxaya ee sheegaya in dagaalkadiisa lagu helay saraakiil sarsare oo TPLF bismillaahi raxmaani raxiim waan salaamayaa dhammaanba saaxiibada barnaamijka sida tooska noola socda iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed intoodana daawata intooda aan daawanin meel kasto ay joogaanba nuurow warar degdeg ah oo soo baxay goordhow amaba muddo hadda qiyaastii laga joogo 45 daqiiqo ayaan filayaa ayaa waxa baahisay wakaaladda wararka ee dalka Ethiopia taasi oo iyada oo soo xiganaysa sargaal sare oo ka tirsan ama generaal ka tirsan ciidamada militariga dalka Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in hawlgal cir iyo dhul ah weerar cir iyo dhul ah lagu qaaday malahayga ee goobar tilmaameed ahayd oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo madax sare oo ka tirsan kooxda TPLF halkaasi waxa lagu sheegay weerarkaasi cir iyo dhulka ahi oo ay ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee ciidamada cirka kuwa diyaaradaha maaragtay guuxooda ka dheereeya ku jooga ee dalalka Ethiopia iyo Eritrea labadaba waa ka qayb qaadanayeen sidoo kale diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa iyaguna qayb libaax ka qaadanayay oo meeshaasi maaragtay kii dhaqaaqaba dhegta soo qaba kaga dhigayay ciidamada geeyay ciidamada sidoo kale gaadiidka gaashaaman ku jooga iyo ciidamada lug ah oo afanteriya ayaa ka qayb galay wuxuu ahaa hawlgal culus sida aan filayo waxa lagu bartilmaameedsanayay hogaankii ugu sareeyay kooxda TPLF marka la fiiriyo baaxadda yani hawlgalkan lagu sheegay inagu mayna joogin goobta laakiin sida ay wakaaladda wararka Ethiopia baahinayso hawlgalkan weerar cir iyo dhulba ah oo ciidamada maxaan ku yiraahdaa xoogoodii oo dhan meesha la isugu geeyay ayuu ahaa ilaa iyo haatan waxa ay sheegtay wakaaladda wararka Ethiopia in weerarkaasi ay ku dhinteen saraakiil sare oo ka tirsanaa kooxda TPLF ee iyadu haatan maaragtay dibad joogga ka talada dalkaasi Ethiopia saraakiishaasi waa ilaa iyo 4 sida la sheegay koox kale oo ilaa iyo 8 ama 7 ah na maaragtay waa la soo qabtay oo nolosha ayaa lagu soo qabtay ayaa ay tiri wakaaladda wararka Ethiopia hawlgalku marka hawlgal baaxadda leh oo la yiri 4 askarina waa 4 sargaal 4 mas'uulna waa lagu dilay ilaa iyo maaragtay koox kalena waa lagu soo qabtay oo galabta dhacay ayuu ahaa oo maxaan ku yiraahdaa ay si wada jir u fuliyeen ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea waa mahadsantahay aad baa mahadsantahay Jaamac waayahay markaan hore u siyar soconno saraakiishan qaybna la laayay qaybna nolosha lagu qabtay yaa ka mid ah baa la yiri oo caan ah oo laga garanaya gudaha wadanka Ethiopia ama siyaasadda Ethiopia ee qayb ka ahaa nuurow marka la fiiriyo يعني baaxadda warka loo yeelay iyo hawlgalka maaragtay sida loo yeelay generaalka ka hadlay iyo sida yar maaragtay culayska qaabka ciidanku maaragtay dhinac walba ay maaragtay uga hawlgaleen cir dhul iyo maxaan ku yiraahdaa gaadiidkii gaashaana marka la fiiriyo iyo marka la maaragtay madaxda sare ee la sheegay ee TPLF la soo qabtay marka aad isu fiiriso waxaad moodaa inuuna maaragtay isu yar miisaanayn oo waxa jira waxyaabo maaragtay markiis aad loo maaragtay weyneeyo maaragtay ay tahay hawlgalkaasi dad u dhigma in lagu soo qabto ama lagu dilo marka
afarta sargaal ama afarta madaxda sare ah sida loo dhigay ee lagu soo qabtay dagaalkaasi sida uu sheegay generaal ayalow oo ah generaalka isagoo xogtan ka warramay aan filayana inuu yahay taliyaha ciidamada gaarka ah ee kumaandoosta dalka Ethiopia oo isagoo howlgalkan mas'uul ka ahaa dadka lagu soo qabtay ilaa 2 qof baa magacyadooda la sheegay waxaan ka badnayn waxaana lagu sheegay labadaasi qof ee haddana madaxda sare laynoogu sheegay agaasimihii hore ee warbaahinta qaranka Ethiopia agaasimihii hore ee warbaahinta ama agaasimihii hore ee telefishinka Ethiopia nin lagu sheegay oo la yiraahdo maxaa asgadem iyo maxaan ku yiraahdaa mid kale oo isna la sheegay in uu ku magacawnaa afhayeenka TPLF de goormo ku magacawnaa hadda TPLF laba afhayeen bay leedahay midna waa Geetachow Reeda midna waa Gabre Sadik mid kale yiraahdo labada afhayeen bay leedahay iyo marka waxaa la yiri nin kale oo ku magacawnaa afhayeenka TPLF ayaa kamid ahaa baa la yiri xubnaha lagu dilay howlgalkaasi yani afarta madaxda sare ah ee TPLF ee la dilay waa agaasimihii hore ee telefishinka qaranka Ethiopia oo lagu magacaabo Asgadem iyo maxaan ku yiraahdaa mid kale oo magaciisa aan la sheegin oo isna la yiri TPLF wuxuu ugu magacawnaa ma hadda ma sanadkii hore ma waagii hore marka labadaas nin oo mid afhayeenka TPLF ku magacawnaa oo la sheegin xilligu ku magacawnaa iyo maxaan ku yiraahdaa agaasimihii hore ee TV-ga qaranka dalka Ethiopia hello ها جامع واكم مغلا waxaan codka igu soo noqonaya min fadlak marka muhiimadda waxay tahay in yani afarta sargaal ee la dilay lagu sheegay labadaasi sargaal maxaan ku yiraahdaa laga sheegay labadaasi magac inta kalena aan la sheegin sagaalka kale ee ay sheegeen ama 8 kale ee ay sheegeen inay soo qabteenna iyaga naftirkoodu dad maaragtay hadda aynu aynu wax ka garan karna ma aha dadkii la yaqaanay ma aha waxa ku jiray ambassadorkii hore ee dalka Suudaan u fadhiyay dalka Ethiopia ayaa kamid ah marka muhiimaddu waa sida inta weeyaan yani waxa weerarka ciriyo dhulba ee dawladaha Eritrea iyo Ethiopia iska kaashadeen ee ciidamada kumaandoosta la howlgeliyay ee maxaan ku yiraahdaa diyaaradihii cir iyo dhulba kuwii guuxooda ka dheereeyay iyo kuwii cagahooda ku socdayba intiiba ay meesha isugu tageen laba sargaal oo midna ahaa maxaan ku yiraahdaa agaasimihii TV-ga Ethiopia iyo maxaan ku yiraahdaa nin TPLF ku magacawnaa nin maxaan ku afhayeenka TPLF ku magacawnaa oo labadaasi kuwa dhintay bay ku jiraan maxaan ku yiraahdaa safiirkii hore ee Ethiopia ee dalka Suudaanna wuxuu ku jiraa baa la yiri dadka la soo qabtay waa mahadsantahay aad baa mahadsantahay jaamaco way howlgalkan macir iyo dhul buu labadaba lagu qaaday oo maaragtay howlgalku ka socday mise howlgalku waa howlgal ay ciidamada cirka ee Ethiopia ay fuliyeen oo sidaasi lagu beegsaday goobtii ay ku sugnaayeen saraakiishan sida lagu sheegay wakaaladda wararka Ethiopia qaar kamida shabakadahana ay baahinayaan uuna sheegay generaal ayalow ninka la yiraahdo howlgalku wuxuu ahaa howlgal cir iyo dhul ah oo lagu qaaday goob yani maaragtay aan la sheegin oo ay ku sugnaayeen madaxda sare ee kooxda TPLF-na lagu bartilmaameedsanayay howlgalku saas uu ahaa sida uu u yiri isagu yani waxaana qaaday buu yiri yani ciidamada dalka Ethiopia qaaday buu yiri laakiin qaar kamida warbaahinta dalkaasi Ethiopia ee madaxa banaan ayo activistayaasha la socda xaaladda waxay leeyihiin weerarka waxa ka qayb galay ciidamada cirka ee dalka Eritrea iyo ciidamada cirka ee dalka Ethiopia waxaana la filayay meesha inay ku jiraan hogaamintii sare ee kooxda TPLF taasi oo markii yani dagaalku uu bilowday sidii la moodayay aan noqonaynin howlgalka oo socday qiyaastii muddo 45 ama 43 daqiiqo ah ayaan laga gaarin natiijada iyo ujeedadii laga lahaa sidaas ayay qorayaan marka muhiimaduna waxay tahay in dawladda Ethiopia ay sheegtay howlgal culus oo ciriyo dhul ah inay qaaday ayna ku bartilmaameedsatay ama ku beegsanaysay goob ay ku sugnaayeen madaxda sare ee kooxda TPLF sidoo kalena warbaahinta madaxa bannaan ee Ethiopia iyaduna ku doodaysa howlgalka inay qayb ka ahaayeen ciidamada cirka ee dalka Eritrea una ahaa howlgalku mid qorshaysan oo la filayay goobta lagu qaadayo in ay ku sugan yihiin hogaamintii sare ee kooxda TPLF waad mahadsantahay وهاجاك أدي أدو ما صنع جامعو مركز الفيريو وركن ووربا حد وين سراكيشني سامين بدن طبعا كل حلهايان جودها كوحدة TPLF أيضا هذا دور شوكتا
marka la fiiriyo haddiiba sheegashada Ethiopia ay run tahay oo saraakiishan qaybtana laga laayay qaybtan kalena gacanta lagu dhigay dhaawac intee lag bay soo gaarsiin kartaa halgankii ay ku jireen kooxdaasi Tigreegi horta dee waa run oo qof kasta oo maaragtay to dhintaahi dee booskiisi waa bannaan yahay laakiin hadda anigu agaasimihii hore ee telefishinka Ethiopia iyo maxaan ku idhahdaa to nin TPLF afayeen ugu magacawnaa oo aan la sheegin xilliga uu ku magacawnaa ma Getachew Reda mise waa Gabrasaadaq midna laguma sheegin nin ku magacawnaa baa la yidhi afayeenka TPLF iyo safiirkii hore ee Ethiopia u fadhiyi jiray dalka Sudan dadka horta laynoo sheegay wax dhintay iyo wax la qabtayba horta dadkaasaa ka mid a marka haddii madaxdii sare ee hogaamintii sare ee kooxda TPLF hogaamin bay leedahay la yaqaano caan ah aan qarsoodi ahayn maxaan ku idhaahdaayeto agaasimo telefishin iyo safiir maxaan ku idhaahdaayeto dal kala jooga midna TPLF maxaan ku idhaahdaayeto saamayn badan kuma laha iyo maxaan ku idhaahdaayeto wax la mid ah TPLF waa ragga hogaamiye waa la yaqaanaa waa generaaladii ciidanka difaaca dalkaas Ethiopia soo xukumayay muddadii 27 sano ahayd raggaasaa TPLF hogaamiya waxaa hogaamiyay saraakiishii ugu sarreysay ciidankii sirdoonka dalka Ethiopia raggii muddada dheer ee 27 sano soo hogaaminayay raggii 27 sano wasiirada aan dhicin soo ahaa madaxweynayaashii Tigreega raggaasi oo dhan weeyaan ragga lafdhabarta u ah TPLF ilaa iyo haddana hal nin ah oo ay qodaxi mudday dowladda Ethiopia nooma sheegin markii ay yani hadday ka tagi weydo kuwa ay ahayd madaxa laga goostay oo markii la dilaa madaxa laga goostay haddayna ku jirin yani la inooma sheegin oo dowladda Ethiopia ma aanay dhihin maxaan ku idhahdaa to raggaasaan ka shakisannahay inay ama dhinteen ama dhaawacmeen ama dalka ay ka baxsadeen wixiina oo dhanna meel kale ma jiraan deegaanka Tigreega ayay ku sugan yihiin oo ay ka howlgelayaan marka howlgal raggaasi aan lagu soo qabanin aan lagu dilin aan lagu dhaawicin aan maxaan ku idhaahdaaye to casharo waaweyn aan loogu dhigin iguma muuqdaan aniga howlgal baaxad leh waxay tahay uun wax maaragtay to lagaga jawaabayo maaragtay howlgalladii kooxda TPLF maalmihii la soo dhaafay ay waday maxaan ku idhahdaa ciidamada dalka Eritrea gaar ahaan ay la beegsanaysay saraakiil badan oo Eritrean ay ku baxeen ciidamo badan oo Eritrean ay ku baxeen maxaan ku idhahdaa ciidamo badan oo labada dhinacba leh ay maaragtay meeshaasi ay ku maaragtay ku galaaftay dagaalkaasi howlgalladaas iyo dagaalkaas ayaan u arkaa in lagaga jawaabayo uma arko yani howlgal hadda baaxad leh oo lagu wiiqay maxaan ku idhahdaa TPLF iguma muuqdo waayo TPLF maalmihii la soo dhaafay waxay sheegaysay inay maaragtay ciidamo badan oo Eritrean laysay gabi ahaanba inay kala xidhay ciidamadii Eritrea ee doonayay inay ka baxaan deegaanka Tigreega ee u sii hayaamayay dhinaca iyo dalkooda kuwii dalkooda ka soo geli lahaana inay soo geli waayeen kuwii ka baxayay deegaanka Tigreegana inay ka bixi waayeen Eritrea naftirkeeda qiratay oo telefishinka dowladda Ethiopia ayaa Eritrea ayaa cadeeyay oo si cad u yiri in maaragtay afar ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay ciidamada ama 6 ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay ciidamada Eritrea ee ku sugan Ethiopia gaar ahaan deegaanka Tigray in ay daacuun ugu dhinteen meeshaas waa mahadsantahay marka waxaan u arkaa un wax lagaga jawaabaya howlgalkaas ee uma arko maaragtay to wax kale oo hadda maaragtaa sii weyn aad baad u mahadsan tahay jaamac gallad ayuu kaasi ahaa oo dabcan barnaamijka inoo soo jeedinayay jaamac su-aasha ugu dambaysan ku weydiinayo kooxdan TPLF rasmiyan marka la yidhahdo meeqa afayeen bay leedahay labay leedahay inta inagu aynu naqaano oo maxaan ku idhahdaa midna waa afayeenkoodii hore ee caadiga ahaa ee Getachew Reda la yidhaahday xubin guddi fulin golo dhexe oo TPLF marar kala duwanna xilal ka soo qabtay dowladda federaalka ee dalka Ethiopia waxaa kale oo jira mid ay samaysteen intii dagaal laga caydiyay maxaan ku idhahdaa maqale ama maalmihii maqale ay ka cararayeen afayeen dhinaca maaragtay ciidamada ah oo lagu magacaabo Gabrasaadaq wax noocaas ah oo maxaan ku idhahdaa inta badan isagu ka warbixiya howlgallada dagaalka iyo goobaha maaragtay dagaaladu ay ka dhacaan iyo isagu waxyaalahaas uu ka hadla labada afayeen baan ku naqanaa TPLF laakiin hadda dowladdu waxay sheegtay afayeen aysan magaciisa sheegin iyo xilka goorta uu xilka soo qabtay iyo yani on afay ku magacawnaa baa la yiri nin ku magacawnaa afayeen marka 76kii xilligii duurka ay ku jireen ba xilligii la aasaasay TPLF afayeen
mid u soo noqdayba ma mid maxaan ku idhahdaa to hadda labadii meesha joogtay oo midkood dhintay lagu bedelayba ma mid maxaan ku idhahdaa to iskii isaga magacaabanba we don't know ma garan karno laakiin waxaa laynoo sheegay uun nin ku magacawnaa mid baa la yidhi ku magacawnaa rag iyo dumar wuxuu yahay lama sheegin mid ku magacawnaa afhayeenka kooxda TPLF marka afhayeenka kooxda TPLF mid ku magacawnaa iyo mid maxaan ku idhahdaa to ka soo shaqeeyey ama soo ahaa agaasimaha TV-ga dalka Ethiopia ETV labadaasi waa dhinteen iyo laba kale oo la sheegin iyo oo ilaaladoodii asaan jeclahay ha staafkoodii baa la socday baa la yidhi dadka la qabtayna waxaa ka mid ah safiirkii hore ee dalka Ethiopia u joogi jiray maxaan ku dhahay Suudaan isaguna marka lama sheegin xilliga uu safiir soo ahaa ma hadda kii waqtiga ku dhacay uu ahaa ma mid hore u ahaa mawji lama yaqaano laakiin inagu sida aan ku naqano TPLF waa laba afhayeen waa maasanta hagaag aad iyo aad baad mahadsan tahay jaamac gallado waa yahay daawadayaal intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkan kooban ee aan kaga warramaynay warkaasi ka soo yeedhay dowladda Ethiopia ee ay ku sheegtay in weerar cir iyo dhul ah oo ay ku qaaday fadhiisimaha kooxda TPLF ay khasaare culus ku gaarsiisay isla markaasina qaar ka mid ah saraakiishii kooxdaasi ay qaarna dileen qaarna ay gacanta ku soo dhigeen oo ay ku jiraan haatan gacanta waddanka Ethiopia ma jiro wax jawaaba oo dhanka TPLF ka soo baxday ilaa iyo hadda inta la og yahay oo ay kaga jawaabayaan sheegashada dowladda Ethiopia iyo dagaalkaasi dabcan lagu qaaday saraakiisha qaar lagu laayay qayb kalena gacanta lagu dhigay jaamac waa mahadsan yahay daawadayaasha qiimaha badan ee sida tooska noola socdana way mahadsan yihiin waan idiin soo gudbin doonaa marba wixii ka soo kordha haddii ilaahay nafta nagu ammaansado inta aan mar kale kulmi doono fid wanaagsan